بقرآني فيشرق صبح برحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب قرآني ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت مع القرآن اهتديت. سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. سورة الفيل أيضا وسورة مكية قصة إلى ذا يسيد علماء السيرة أي شيئان كتب التفسير كان أنت وضبضان كسو أروتين إنك السوء أيضا أين الهين معنى وحوي يعني أين الهين سنة صحيحة حدنا وحوي كتب التفسير كإيو معنى وحوي كتب السيرة إيو ويسو أروريان وأنا قصة داس dhacday taariikhiga bay suuradu ka hadlaysaa. alam tara miyadan ogeyn nabi maxamedow kayfa sida facala uu falay rabbuka rabbiga bi ashaabil fiili maroodiga asxaabtiisa sidoo ku falay. alam yaj'al miyuusan yeelin kaydahum dhagartoodii fi tadliilin dayac dhexdi miyuusan yeelin dayac iyo khasaare wax lagu khasaarayso muusan ka yeelin oo arsala soomuusan dirin calayhim korkooda tayran shimbiro soomuusan ku dirin shimbirahaasoo abaabila horin oo isdaba jooga horin israacraacsan oo isdaba jooga shimbirahaasoo tarmiihim ku galaysa bixijaaratin dhagaxyaantaasoo min sijiilin dhoobo la dubay dhoobo la kariyo dhagaxowday oo fajacalahum soomuusan ka yeelin rabbi kuwa iyaga ka casfin sidii bal oo kale ma'kuulin oo la cunay bal la daaqay oo kale soo rabbi kama dhigin subxaanahu wa ta'ala waa ka yeelay. qisadani waa qisadan sheegana waa qisad taariikhi oo waxay dhacday nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam sanadku dhashay bay dhacday waana arrimaha ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu rasuulka soo diridiisa uu gogol xaaray bay kamid waxayna ahayd markii la soo gaabiyay bil ikhtisaar meesha la yiraahdo Yemen ayaa waxa joogi jiray baa leeyahay nin Abraha la yiraahdo oo gumratoore ka ahaayo gudoomiye ka ah wuxuu raacsanaa boqorkii Xabasha. ninkaas markaa wuxuu dhisay kaniisad aad u weyn oo si fiican loo qurxiyay oo uu ugu talagalay boqorka Xabasha uu ugu talagalay inuu ku raali geliyo. kaniisadii markuu dhisay ayaa wuxuu hadana damcay inuu carabta Maka u xajida ilaan carabta Yemen degan dhamaanteed iyo kuwa yaani ka sokeeyaba dhamaantood waxay soo aadi jireen Kacbada Makay soo aadi jireen. wuxuu damcay marka carabtan uu Maka u sii socoto sanad walba xajka intuu ka soo leexiyay inay kaniisadiisan quruxda badan u soo xajiyaan. carabtuna niman adagoo waxay ahaayeen mabaadiidooda ku adag. ninba wuxuu ka warhelay carabti markay maqleen kaniisadaas la dhiso waxa la rabaa inaad u xajidaan Maka iyo xajkeedana aad ku bedelataan way xanaaqeen. laakiin maxay qaban karaan tabar weyn ma hayaan. ninba tagay bay leeyihiin waa sida macna wax way qisadu ay leedahay iyaga kamida kaniisadii intuu galay oo dhexdeeda ku xaaray oo xaarkii qaaday buu kaniisadii marmariyay xumayn uu ku xumaynahay Abraha iyo wixii iyo mabdu wato hadii subaxdii la soo toosaba kaniisadii waa wada uraysa xajiib Abraha war waxa uu yaa sameeyay carab baa sameeyay markaas oo maxay u sameeyeen waxay ka xanaaqeen kaniisadayda loo soo xajiyo Makana laga soo noqdo masaasa balla waxaan ku galay buuri anigu inaan gurigooda soo dumiyo inaan Kacbada dumiya ballan anigana ab meeshii uu ciidan ka soo kaxaystay aad u far badan carabtii ilaa jasiiradda ilaa Yemen deganayd inay ka hortagaan bay isku dayeen waa la dagaalamay uu soo jiiray ilaa uu Taif ka yimaado. Taif waa duleedka Maka way isagii ciidamadiisii maroodi buu wataa marka maroodiya lagu dagaalami jiray maroodi buu ku dad technique wuxuu wataa maroodi midba u weyn oo hogaamiyo isagu u saaray meesha markuu yimid reer Taif nimankii qabiilkii reer Thaqif lidii jiray way iskala hadleeno wadii iska kaana daabay waxa doontaba wixii aad doontaba waa ku yeelanay laakiin faraha naga qad waa yahay buu iska soo dhaafay meeshan uu yimid Maka duleedkeedu yimid meeshan Carafa iyo
musdalifa dhexdooda waadi muxasir meeshana yidhaahdaan halkaasuu ciidankii isagoo wata soo fadhiistay muxuu u socdaa kacbada inuu dumiyo carabtana markaas waxaa oday u ah cabdulmualib nebi maxamed sal alay waslam awowgii cabdulmualib baa oday u ah nin aad u qurux badan oo dheer oo lafleb u ah qoor ah cabdulmualib markuu warkii maqlay wuxuu damcay inuu u tago abraha oo arrinta kala hadlo intuusan taaba gaadhinba geelii quraysh ay lahaydee dhulkaa daaqahaybuu abraha uruursadayoo intuu xaabiyey buu meel ku xaraystay cabdulmualib warkii markuu maqlay wuu tegayoo abruhu u tegay wuxuu yidhi war abrahow xageed u socotaa waxaan ku socdaa buu yidhi inaan beydkaas dumiyo wuxuu yidhi beydka ilaahay baa iska leh ilaahay baana kaa difaacanaye aniga geelaygaa iisii daa buuri geelayga adiga hayso iisii daa wuxuu yidhi markaad soo socotay ood soo gelaysay aad baad indhahayga haybad ugu lahayd buuri laakiin warkaa markaad ku hadashay waad qiimo dhacday buuri agtayda oo maxaa dhacay nin beydkii uu ilaa awowyadii ka soo gaadhay lagu socdo la duminahayo oo halahayga iisii daa ku hadlahay waxaan kaa filahay buuri war ku saabsan beydka iyo duulaankan ku hayo iyo weerarkayga inaad ka hadasho bad markaad hala meeshan ku xaraysan aad ka hadashay inaadan qiimo lahayn baa ii soo baxday wuxuu yidhi abrahow beydkaas ilaahay baa la buhi hadduu kaa ceshanahay anigu laakiin halahaasaan lahay iisii daa cabdulmualib waa laabtay bay leeyihin waa sidai macnaha waxa wey ay qisadu leedahay cabdulmualib waa laabtay makuu ku laabtay odayaashii quraysheed buu kulmiyey wuxuu yidhi ninkani waxaan u babac dhigi karna ma ahe meelaha baadiyaha iyo buuraha korkooda iyo dhulka golaha ah ha lagu carara bur wayna baryootameenoo intay kacbada yimaadeenoo ilaahay baryeenba waxay ilahu beydkaaga ninkaa ka qabso abraha markuu damcay inuu soo dhaqaajiyo oo uu ku talagalay subaxda inuu kacbada soo galo dumiyo oo maroodigii inta la kiciyey la rabo in la dhaqaajiyo maroodigii inuu dhaqaaqaba waa diiday xaggii kacbada in u soo dhaqaaqaba waa diiday hadday xagga yaman u jeediyaan waa soconaya shaam hadday u jeediyaan waa soconaya galbeed hadday u jeediyaan waa soconaya maka xaggeeda markay usoo jeediyaan lama dhaqaaqayo nag garaace uneeye wax walba ku sameeye diid waa miduu nabigu leh sal alay waslam hashiisa markay magaalada madiine maalinkii gasho muxuu yidhi xabasahaa xaabisulfiil buu nabi sal lay slam xabasahaa xaabisulfiil may waxay ahayd xudaybiya yani waxa wey allihii beydkiisa maroodiga ka qabtay baa hashan fadhiisiiyey dhaafa buu nabi sal lay slam xudaybiya ahayd soomali marka maroodigii markuu socon waayo dhaqaaqi waaye meeshii ay mirig leeyihiin oo dhinacna u dhaqaaqi laayihiin baa rabbi subxaana wa tacaala wuxuu kusoo fasaxay shimbirahaas shimbiro meelay ka yimaadeen aan la garanayn oo dhagaxyaan xambaarsan dhagaxyaantay xambaarsan yihiin dhoobo la dubay oo la ingejiyey ka samaysan waa dhagax adag wey dhaguxu markuu dhoobo ka samaysan oo la qallajiyo haddana la dubo wuu kaa dhex dusi shimbirahaasaa ilahay kusoo fasaxay subxana wa tacala soomaalit waa diyaaradaha hadda lagu dagaalamo o kaleeto sawaariikh iyo manaaficun baa laga dhacay mid dhinta iyo mid fiiga oo laga daba tago sidaasay noqdeen rabbi subxaana wa tacaala marka dhacdadaa iyadee taariikhiga cajabta badan buu rabbi ku waariyey subxaana wa tacaala qur-aanka oo uu ku sheegay waxaana loogu sheegayaa rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sanadkay dhacdadaasi dhacayso waa sanadkuu dhashay wey waxaana rabbi subxaana wa tacaala asbaabtan ay u dhacday ka mid ahaa in la muujiyo beydkan iyo weynidiisa iyo qiimihiisa waxayna hordhac iyo gooldhac u ahayd rasuul nebi maxamed oo waqtigiisii soo dhawaado lasoo saarayo salawatu rabbi wasalaamu caleyh saasay ahayd macna qisada marka yani waxa weye duruus buu rabbi ka bixiyeyo allaha beydkiisa carab oo dhan markay ay yani waxa weeye ka carartay oo difaaci weyday oo cabdilmualib oo ugu dambeeyey uu duurka galay oo yidhi qurayshay carara ninkii la dhihi jiray abrahana uu isleeyahay ciidina kaa hor istaagi mayso allaha beydkiisa ka difaacday abraha iyo ciidamaduu watay rabbi subxaana wa tacaala sidaa u difaacay rasuulkiisa waa difaacanaya diintiisana waa difaacanaya gaal iyo afkaartiisa iyo mabaadi'du watana waa khasaarinaya rabbigii subxaana wa tacaala arrintaas sameeyey haddana waa jiraa rasuulka marka salawaatu rabbi wasalaamu calayhi qalbiga loogu dejinaya inay gaaladu jabi doontaa loo sheegaya libta inuu gaari doonaa loo sheegaya waxay xidhxidhahayaan iyo dhagartoodu inaysan fulaynin baa loo sheegaya waqtigaa nabiga sidaa loo sheegaya waa waqtiguu maka joogay dhibaatadu haysatay uu rafaadsanaa la cadaadinayey la dacaydinay dhib o dhan lagu hayay wy macana alam tara miyaadan ogeyn buu rabbi yihi subxana wa tacala kayfa sidee buu facala falay
rabbuka rabbigaa uu falay biasxaabilfiili maroodiga asxaabtiisii sidee buu ku falay maroodigu waa maroodigay wateen ay ku dagaalamayeen isagaasaa macnaha waxa weye looga dhigay magac looga dhigay maroodiga dadkiisii waa abraha iyo ciidankii siduu rabbi ku falay miyaadan ogeyn see buu ku sameeyey alam yajcal miyuusan yeelin kaydahum dhagartoodii wixii ay shirqoolkoodii fii tadliilin dayaca dhexdiisa muusan yeelin khasaare iyo dayac wax dayacmay oo laga guulgaari waayo soo kama dhigin way ku hungoobeen ayagiibaa ku baaba'ay ku dayacmay ku khasaaray ku halaagsan soo alla kama dhigin subxana wa tacala oo wa arsala soo rabbi ma dirin calayhim korkooda soo muusan ku dirin dayran shimbiro abaabiila oo horin ah abaabiishu macnaha wax weeye koox bay u socdaanoo haddana waa isdaba joogaan koox baa imaanaysa way rushaynaysaa oo dhagaxyaantii bay la dhacaysaa haddana koox kaleetoo yaacaysa waata way garaacaysa koox kale haddana ka dambaysaa way garaacaysa abaabiila waxa weeye waa sida hadda maalan adduunkuba u dagaalamo diyaaradaha marka lagu dagaalamayo qayb baa gelaysa waa fulaysa qayb kala gelaysa waa fulaysa qayb kala gelaysa waa fulaysa saasay isu daba joogaan abaabiishu saasaa laga wadaa macna tarmiihim shimbirahaasoo tarmiihim ku ganaya bixijaaratin dhagaxyaan ku ganaya dhagaxyaantaasoo min sijiilin dhoobo la dubay ah dhoobo la dubay bay ka samaysantao la ingejiyey waa aad bay u adag dhagaxaada waa ka adagta marka qaarkood fajacalahum markaasuu alla wuxuu ka yeelay jacala wuu yeelay hum asxaabulfiilkii wuxuu ka yeelay ka casfin sidii bal oo kaleeto ma'kuulin oo la cunay oo la daaqay bal la daaqay see buu noqdaa balka markay xooluhu daaqaan muxuu isu bedelaa wuxuu isu bedelaa yani oo uu noqdaa isagoo dhanba diguu noqdaa digo sooma marka waxaa laga wadaa digoo kale laga dhigay wax daaqsan oo baaba'ay oo sidii digada xoolahoo kale noqday buu rabbi ka dhigay subxana wa tacala saasaa loo baabayey rabbi marka ciidamadiisa wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa shimbiruu ilaahay adeegsan dabayluu adeegsan dhulkuu adeegsan wuxuu doonu ilahay kugu diri subxana wa tacala haddii lagu kari waayo oo qad iyo isla weynan uu ku galo sida abraha oo kaleeto meelun baa lagaaga iman adigu aadan garanayn macnaha